ciise dagaal ayaa saakay laga soo sheegaya inay ka taagan tahay deegaano ku yaala bariga gobolka mudug halkaas oo shalay ay ka dhaceen dagaal u dhexeeya maleeshiyaad beeleed hubeysan. wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in saakay ciise dagaal laga dareemayo deegaano ku yaala bariga gobolka mudug kuwaas oo u dhexeeya laba maleeshiyaad beeleed. waxaa lagu soo waramayaa in labadii maleeshiyaad beeleed ee ku dagaalantay halkaasi ay wadaan dhaaqyo kala duwan oo hub aruursi ah. dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay ka cabsi qabaan in halkaas mar kale dagaalo ay ka dhacaan. waxay sheegeen in saacadihii ugu dambeeyey gurmadyo kala duwan ay heleen maleeshiyaadkii shalay halkaa ku dagaalamay kuwaas oo dhaaqyo ka wada deegaano ku yaala bariga gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug. si kastaba shalay deegaanadaas waxaa ka dhacay dagaallo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaad beeleed hubeysan kuwaas oo geystay khasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. dhinaca kale qaar ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed oo ka hadlay dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday deegaano ku yaala bariga gobolka mudug ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdega loo joojiyo colaadaasi. ugaas dhubbad oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta Simba ee magaalada Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay xiisadan ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan gobolka mudug, isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo. waxa uu sheegay inay tuhmayaan in gacmo shisheeye iyo sidoo kale gacmo siyaasadeed ay isku dirayaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug. caynul caafiya hosbital waxa uu kaa daweynayaa xanuunka baabasiirka. ma dareemaysaa dhabar xanuun, caajis joogta ah, cuncun dhanka hoosa, saxaradoo kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha? haddaba iskaga ciribtira xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn. wixii faahfaahina kala xiriir taleefanada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777.